waagii markii uu bariyey waxa ii yimid ninkii maafiyada ahaa oo wejigiisu ay ka muuqato cara aad u fara badan. wuu i soo kaxeeyey wuxuuna i keenay guri aad u weyn oo qurux badan. kama aysan jirin wixii aan ku soo arkay halkii aan xalay ku bariyey. ma jiro wax qori ah, hub ah ama dhibaato kale. ma jirto cid la garaacaya ama dhibaato loo geysanayay. waxaa ku noolaa hal naag iyo 3 carruur oo yaryar. wuxuu ii sheegay inay tahay naagtani xaaskiisa carruurtan isaga u dhalay. horay ayuu ii soo kaxeeyey wuxuu ina i keenay qol yar oo aad u qurux badan. wuxuu igu yidhi halkan adiga ayaa iskale waana qolkaaga kuu gaarka ah. waxaa kuu yaalla dhammaan wax alla wixii aad wax ku baran lahayd. waxaan sidoo kale kuu keeni doonaa telefishin yar oo aad daawad doonto markii aad daasho si aad ugu caajis baxdo. laakiin waxaan ku weydiinayaa su'aalo. waa maxay sababta keentay inaad raggan soo raacdo? mase ogayd inaad ka mid noqon lahayd gabdhaha loo diyaarinaya inay jidhkooda mustaqbalka ka ganacsadaan oo halkaasi lagu korinayo? waan isku naxay, indhaha ayaan caddeeyey. kadibna waxaan ku idhi waxaasi waxba kama warhayo aniga. isaga waxa uu haystay inaan iskay u imid halkaasi oo aan doonayay inaan ka mid noqdo dumarka foolxumada iyo xumaanta ka shaqeeya. intuu aad u carooday, indhaha bannaanka keenay ayuu igu yidhi, naa waxba ha ii ooyin, indhahana waxba ha caddaynin. ha isku dayin inaa aniga i beer jilicsato, waayo qalbigayga haba yaraatee wax naxariisa kuma jirto. adiga oo kale waa dadkaan ugu jecelahay oo aan eedbiyo. halkan waxaan kuu keenay oo aan reerkayga kuugu soo daray inaad iyaga ka mid noqoto. waxaad leedahay xaqa ay leeyihiin carruurtayda, waxaadna ka mid tahay carruurtayda. waxaad ogaataa laakiin haddii maalin dambe aan kugu arko halkii lagaa soo qabtay, ama adiga oo ag taagan gurigii aan kaa soo kaxeeyey, inaan lugahaada mid ka mida jari doono, gacnahaada mid ka mida jari doono, ilna kaa saari doono, halligna kaa jari doono. waxaad noqon doontaa qof ku noolaata xubin weliba oo laba oo ilaahay siiyey in mid ay weyso. inkastoo ninkan maafiyada hadafkii ujeedka uu ka leeyahay hadalkan ay tahay inuu aniga cabsi geliyo, laakiin waxba war uma haya nolosha aniga aan ku soo noolaa oo aan soo maray. waxa uu sheegayo dhanbo, xataa haddii ay run yihiin haba yaraatee wax jixinshaxa igama gelin. waxaan ku idhi halkan haddii aad ii garatay waan ku noolaan doonaa, laakiin waxaan kaa codsanayaa inaad anigana ii oggolaato inaan baxo oo bannaanada aan tago oo aan soo laabto. wuxuu igu yidhi waad tegi kartaa halkii adiga aad doonto. waxaan guriga ka noqday boqorad. maamada iyo carruurta intaba aad ayay ii jeclaayeen. ma jirin wax fuquuqo aniga aan la kulmay. waxaanna haystay noloshii ugu raaxada badnayd oo aan rabay in aan ka helo hooyada iyo aabbahay. mar weliba oo aan arka carruurtan yar oo aabbahood u cararaysa iyo hooyadood, inkastoo farxad aan haystay, haddana waxaa qalbigayga soo geli jirtay haddii hooyada iyo aabbaha sidan kuu noqon lahaayeen oo aad gaajo ku noolaan lahayd way kaaga farxad badnaan lahayd midda aad maanta haysato. waxaan weligay ku hamin jiray inaan mar un hooyada iyo aabbahay ka helo naxariista waalidnimo ee carruurtan ay haystaan. waxaan arkay sidoo kale in carruurta halkan ku nool ee ninkan maafiyada uu dhalay in aysan wax tijaaba ama khibrad nololeed aysan lahaynba. meel weliba way ka baqayaan, xataa illinka inay istaagaan way ka cabsanayaan. waxaan bilaabay inaan horboodo oo aan tababar siiyo. waxaan bilaabay inaan bannaanka u baxo, reeraha deriska carruurtooda aan barto, magaalada iska warwareego, wax cabsiya ugu jiran aysan jirin. ugu dambayntii waxaan ku guulaystay inaan soo booqdo xaafaddeenni iyo reerkeennii anigoo iska qarinaya in la i arko, waayo waxaa markaasi ii xirnaa xijaab oo aan sitay. xijaabku waxa uu ahaa waxa uu aabbahay iyo hooyaday labadii aadka u necbaayeen markii aan gurigooda imaadana la iga tuuri jiray. hadda waxaan ahay qof xur ah oo sida ay doonto u libisan karta. maadaama qur-aanka aan kor ka xifidsanahayna waxaan jeclaa had iyo goor inaan xijaabka sito. markii dambe waxaan bilaabay inaan wax ka iibsado dukaamadii hortooda la igu garaaci jiray. dadkii arki jiray i daawan jiray anigoo aad la ii garaacayo, la i rafaadinayo, nolosha la igu ciilayo oo aan weligeed xitaa dhihin war gabadha maxaad ka rabtaan, inaan inta u imaado anigoo qurux badan, xijaab sita, lacag sita, wax ka iibsada. hadafkaygu ujeedkaygu wuxuu ahaa in aan u muujiyo inaan maanta noloshiina ka baxay, awoodna u leeyahay inaan sidaan doono u noolaado, waxaan doonana iibsan karo. laakiin carruurnimadu waa cadow laga koree, ma fahamsanayn in dadkan mid ka mida oo dhibaato i gelin karo. qaar ka mida dadka dukaamadaasi lahaa ayaa waxay wargeliyeen reerkeennii.
waxayna ku yidhaahdeen inantiinnii oo aad u qurux badan xijaaban ayaa halkan joogta waxa ayna la nooshahay ninkaas maafiyada ah. reerku waxay arrintaas u arkeen inay ku tahay sumcad darro iyo ceeb. waxa ay go'aansadeen inay soo afduubaan. maalin maalmaha ka mida anigoo ku jira dukaamadii mid ka mid ah ayaa reerkaygii aanan ka warhaynin bannaanku igu sugeen. way ii dhakadeenoo way igaadeen. markii aan soo baxay ayaa la igu bilaabay mar qura garaactin. way soo afduubeen waxayna i keeneen guriga hooyaday. hooyaday markii isha ii saartay waxay tidhi tan ayaan dunida ugu necebahay. waxaan had iyo goora jeclaystaa inaan arko iyada oo sii dhimanaysa. aad u garaaca, lafaha ka jibiya, qolka dambe maqaasiinkana ku xidha, dib dambana yaan loola hadlin ee iska baxa. qolkii ayaa la igu tuuray. waa qol aan lahayn haba yaraatay wax daaqad ah. 3 maalin ayaa halkaasi ku jiray. wax biyo ah iyo wax cunnaha oo la ii siiyeyna ma jirin. waan ooyey, waan qayliyey, aad ayaan u cabaaday. hooyadii ayaan ku calaacalay. haba yaraatee wax naxariisa oo hooyanimo oo qalbigeeda soo galay ma jirin marka laga reebo inay i dhahaysay naadhimo, weli ma naf baa kugu jirta, balaayi ha kugu dhacdee. haddii aad bannaanka timaado waxaad rabtaa sirtaydii ii qarsaneed oo idil inaad bannaanka keento, i ceebayso oo dunidan aan dhibaato ku noolaado. maalinkii afaraad ayay hooyaday ilinkii iga furtay. waxay igu tidhi hadafka aan kaaga furay inaad halkan ii sii joogta ma aha. waa shardi aan kula gelaya adiga. ilinka sare ayaan kaa furayaa, waxaadna aadaysaa guriga aabbaha. dib dambe noloshaada inta ka harsanna il inaan kuu saaro ma rabo. waan ka aqbalay. way soo ceyrisay. waxaan soo aaday guriga aabbahay. aniga oo ku soo dhow guriga aabbahay ayaa gaari madow inta la igu hor jaray la igu dhex ritay layla cararay. ma aqaan sababta iyo hadafka ka dambaysa, laakiin waxaan u haystaa nimankii maafiyada ah ee afduubay inay isla iyaga yihiin. nasiib darro, waa nimankii niman ka soo hor jeeda oo aniga i raadinayay, loona sheegay in ninkii maafiyada ee hore uu i dhalay. alla nasiib darradu yaa badanaa oo xanuun badanaa. ma anigaa dunidan inta noloshayda ka dhima inaan nasiib darrada iyo ayaan darrada la noolaada u nool. waan fahmi waayey sababta. waxaan mar kale ku dhacay wax aanan wax shaqaa ku lahayn, wax aanan awooddeeda lahayn, wax iga quseeyana haba yaraatee aysan jirin, xidhiir aanan la lahayn. waxaa la igu haystaa waxaa ku dhalay ninkaas maafiyada ah. waxaad tahay gabadhiisa u kala hagta una iibisa daroogada. waxaad awood u leedahay inaad si fudud dukaan alla dukaankii la doono aad geyn karta daroogada adiga oo xijaabka isku qarinaya. markii aan u sheegay inaan waxaas wax shaqa ku lahayn ninkaasina uusan i dhalin, waxay igu yidhaahdeen ama inkira ma iska daa, gacanteenna ayaad ku jirtaa, ninkaasina waan dili doonnaa ugu dambayntii. inta ka horraysana adiga ayaan kugu shaqaysan doonnaa. waan diiday. waxaana u sheegay inaan wax daroogaa isticmaalin. aad ayay u farxeen. waxayna yidhaahdeen in badan oo muddo ah waxaan raadinaynay ruux daroogada inoo iibiya, isagana aan isticmaalin. sababtuna waxay tahay wixii loo dhiiba sideeda ayuu u iibin karaa, maadaama wax daroogaa uusan lahayn. hambalyo, ruuxii aan raadinayn ayaa tahay. ninkaasi ku dhalo cadowgaana waan ka aargoosanaynaa. hadduu isku dayo inuu adiga ku soo raadiyana qudha ayaan kaa jari doonnaa. nimankii maafiyada ahaa waxay igu tuureen qol kale. waxay iga xidheen gacmaha iyo lugaha. qiyaastii 2 isbuuc ayaan noloshaasi ku jiray. laakiin nasiib wanaag, maalin weliba waxay ii imaan jirtay naag uur leh. waxay ii keeni jirta cunno. waxay gacanta ku sidaa wax waliba oo aan jecelahay, laakiin waxay siin jirtay cunno aad u yar. waxayna igu dhihi jirtay intaa yar cun, si calooshaada oo soo kuusatay aan loo arag, si aan laguu fahmin inaa cunno cuntay. ha u moodaana had iyo goor inaad gaajaysan tahay oo aad rafaadsan tahay. hana u sheegin cidna inaan aniga cunnada kuu keeno. ogow, ninka hebel la yidhaahdo oo qoladan maafiyada madaxda u ah xaaskiisa ayaan ahay. ha iloobin middaa. maalinkii dambe qiyaastii waa berigii ayaa waxaa nagu bilaabatay xabbado aad isku xixiga oo tiro badan. waxaan sidoo kale maqlay codka ka baxaya gawaarida booliiska ay leeyihiin. waxaa isku dhex yaaca reerkii oo idin. waxaa albaabkii igu soo jibiyey mid ka mida raggii aniga i xirxiray oo moodaba in albaabkan uu yahay kii laga baxayey. kadib waxaa ii soo carartay islaantii uurka lahayd. waxaa iga furtay gacmihii iyo lugihii. waxay igu tidhi waana la soo weeraray, halkan isaga carar. dadkii cararaya ayaan ka mid noqday. sidaas waxaa iigu suura gashay inaan ka soo baxsado ninkii tuugga ahaa ee i dhibaatayn lahaa. aniga oo aad u cararaya, nafteedana la baxsanaya, markana aaminsan in halistu ka badan tahay tii hore, khatarna loogu jiro in naftaba la waayo. waxaan si toosa u soo aaday guriga aabbahay.
inkastoo waaga sii baryayey waan garan waayey inaan guriga si aayar u garaaco. waxaan islahaa ragga intay kaa daba yimaadaan ayay sidii oo kale ku yeeli doonaan. guriga aabbaha mar un gaar. ilinkii markaan imida ayaan si xawliya oo aan ka fiirsi lahayn u garaacay. aabbahay oo argagaxsan, isku dhex yaacsan hadallada uu sheegayo aan la fahmi karin ayaa albaabkii furay. isha markuu isaaray ayuu ugu yidhi, maxaa albaabka saan ugu garaacday? balaayaha kugu dhacdeen. maxaa ku wada habeennimadan? maxaad had iyo goore iga nixisaa oo goor xun ay igu socotaa? waxaan u sheegay halista igu dhacday. waxaan ku yidhi, aabbo, waxaan ka soo badbaaday niman maafiya oo halis ah. naftayda halis ayay gashay. gacmahayga fiiri xarigga ku yaalla, lugahayga fiiri xarigga ku yaalla. aabbo, waan dhibaataysanahay, sidaasaan kuugu imid. halkii aan ka sugayay aabbahay inuu ii muujiyo naxariis iyo waalidnimo, wuxuu igu yidhi, maxaan samayn karaa aniga marka? balbax, meelaha iska joogjoog subaxi waaga markuu baryo, soo laaba aan fiirina xaalka siduu noqdee. aabbahay wuu diiday xataa inta yar ee habeenka ka harsan inaan gurigiisa ku baryo. sidoo kale habeenkaasi waxaan ku baryey dariiqyada xaafaddii. waagi markii uu baryey waxaan ku soo laabtay gurigii aabbahay. albaabka waxaa iga furay islaantiisii. waxayna ku tidhi, aabbahay, gacaliya balkaalay, inantaadii sharqabta ahayd waa tana bal arag. hadday doonaysaa inay musiibo kale annagana geliso. waxaa igu maqaalo ah in nimanka maafiyada ay la shaqaysato. alla yaa og waxay hadda gacanta ku siddo. waxay annaga noo qorshaynayso yaa og. hadday gurigeenna gubta ka warran, haddii adiga lagu dila ka warran, haddii aniga gablan ay soo fadhiisay ka warran. oohin ayaa afka jabsatay. aabbahay isagana kama labalabayno wuxuu igu yidhi, nabax, halkii aad intan oo dhan ku nooleed waad garanaysaa, dib ugu laabo, noloshaada dabbaro. albaabkii ayay iga xigteen. markaa kadib markii aan meel weliba fiiriyey, hooyadayna ma aadi karo, aabbahayna waa kan i racdeeyey. waxaa igu soo dhacday inaan ku laabto ninkii maafiyada ahaa gurigiisii. waan soo dhaqaaqay, ilinka ayaan soo garaacay. waa la iga furay, waxayna indhahaygu qabteen.